Assalaamu calaykum. Dadka guulaysta kuma ay guulaysan nasiib iyo ku beeg, laakiin waa dad si joogto ah u sameeya caado dhaqan subaxeed u gaar ah oo ay dejisteen iyagoo una saamaxday guushooda. Haddaba haddii aynu wax yar ka tilmaano muhiimadda ay leedahay in caado subaxeed la samaystaa, maaha wax hal muuqaal lagu soo koobi karo amaba lagaga goyn karo ee waa wax aad muhiim ah isla mar ahaantaasina qofka caado subaxeed samaysta oo xaqiijin karo guul wax ku ool ah. Haddaba waxaan muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa 5 caado subaxeed oo ay dadka hore u sameeyay ay ku liibaaneen waxna isaga garteen. 1. Qosol oo dhoola cadde. Ku tababar naftaada inay dhoola caddeyso ama ay qosasho xilliga ugu horeeya ee aad soo kacdo subaxdii. Taasi waxay u suurtagelinaysaa maskaxdaada inay dareento farxad iyo mahadnaq. Aad ka mahad celinaysa inaad maalin kale oo qiimo badan noloshaada ku leh aad nooshahay. 2. Cabitaanka biyo kugu filan. Biyo waxay lagama maarmaan u yihiin dhammaan noolaha oo dhan. Ma ogtahay in 70% jirka ka mid ah biyo ka kooban yihiin? Celceliska qofka caadiga ahi waxa uu maalintii lumiyaa 2.5 litir biyo iyo dareere iskugu jira. Haddaba noloshu waa biyo, biyuhuna waa nolol. Xagaaga caafimaadkaaguna waxa uu ku xidhan yahay xaddiga biyo ee aad cabto. 3. Jimicsi 30 daqiiqo ah. Miyaad ogtahay sirta inaad maalintii oo dhan aad tamar u hayso hawl maalmeedkaaga? Jimicsiga kaliya ma aha faa'iidadiisu ma aha inaad miisaankaaga dhinto iyo in jidhkaagu dhismo. Waxyaabaha ugu fiican ee laga faa'iido waxaa ka mid ah in jidhkaagu iska saaro qashinka. Jimicsigu waxa uu keenaa in xubnaha qashin saarka xubinta ugu weyn oo ah maqaarku uu qashin saar fiican sameeyo. 4. Akhrinta waxyaabo awooddaada kor u qaadaya. Qodobkani waa inaad qalin iyo buug soo qaadato oo aad ku qorto waxyaabaha awoodda gudahaaga keen kara. Akhrinta waxyaabahani waxay kor u qaadaysaa tamarta maskaxdaada, waxaanay ku xusuusinayaan awooddaada aan xadka lahayn ee aad ku bilaabi karto maalintaada. 5. Tukashada salaada subax. Tukashada salaada waa taarka aynu u dirnay Alle weyn. Qofka bini'aadamka ahi waxa uu ka kooban yahay jidh iyo ruux isku dhafan oo aan kala maarmin. Jidhku waxa uu quutaa oo uu ku nool yahay waxyaabaha dhulka ka soo baxa ee iskugu jira midhaha, khudaarta iyo cuntooyinka kala duwan. Haddaba waxaa maragmadoon ah qofkii yidhaahdo anigu waxba ma cunayo oo cunto iyo warkeeda waanu istaynay inayna nolol u suurtagal ahayn. Qofka waayo cuntada iyo cabitaanka jidhkaaga ayaa ku nool, la'aantoodna xabaalaha ayaa lagu dari lahaa. Waxa kale oo qofka bini'aadamka ahi ka kooban yahay waa ruuxda laynagu afuufay, taas oo iyaduna quudkeedu yahay wixii sabanan sare ka soo degay oo quraan iyo salaad ah. Intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan kooban ee aan kaga hadlayay muhiimadda caado subaxeedku ay leedahay. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe iyo like nagu dhiirigeli. Wassalaamu calaykum.